السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبشر حسن اشتفتم أم أبشر حسن فاونديشن أنيقو من محمد عبدية دمان ولا لها قالقة ميلان جوجنا بإلها هيلونا بديالو وحربا مركا كوباد قبر أبايا قالقة إنا هالكان أقوم هاد عليو فردوسو أولا جنالك فردوسو كوبعية كريم وان ولا شيء قالية إلهي آخر إي أدوم بأذيق إي أولاد داد إي إنت أرجع بها إذن حفتيو وانا كاغا mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba garab istaagaaga waxaan rajaynayaa mustaqbal qurux badan oo fog oo aanu kaga tagno awlaadeena iyo awlaadee dhaleenba inaan wax bud dhigno ama dhagax dhigno ay naga dhaxlaan wanaag inay naga dhaxlaan wax qabad inay naga dhaxlaan in wax dhaxalgal ah oo ummadeena sida ummadahan kalaba ay dadkooda uga tagaan wax dhaxal gala inaan anaguna ma aragta bilowna ugana tagna ayaan rajeynayaa insha Allah dhamaan walaalaha kale ee iyaguna sidoo kale garab istaagay iyagana aad baan uga mahadnaqayaa waayo gabdho badan oo walaalo ah waxaa jira sidaas oo kale share out noo sameeya gabdha maxaa la yiraahdaa mar walbaba share gareeya barnaamijkeena gabdha mar walbaba runtii ka sheega janaladooda dhammaantiin walaalayaal aad baan idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhammaan walaalihii hore noola joogay oo mar walba na dhiirigelinayay dhammaan walaalaha hadda nagu soo biiray walaalayaal soo dhawaada sidoo kale waxaan rajaynayaa walaalo kale oo badan inay nagu soo biiraan insha Allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago oraah uu nooga tegay abwaan Soomaaliyadoo dhintay Allah u naxariisto abwaan gaariye la oran jiray waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo yaryar inay janalka hadda ay ka mid yihiin oo aan aqoon badan u lahayn oraahdaas aan raba idinla wadaago waxay oranaysaa abkuu doono ha sheegtee waxunbaa ehel ii ah dad ninkan af aqaane si wax iila arkaaye na midayso ujeedo oraahdaas dabcan iyadoo af Soomaali ah haddana xigmad badan ayaa runtii ku dheehan dabcan anagu dad Soomaaliyeed baynu nahay 30 sano waxaynu nahay wadan dagaal iyo dhibaato ay ka jirtay ummadii way kala irdhowday waxyaalo aanan macno weyn samaynayn ayaana kala geeyay qof walba waxbaa laga dhaadhiciyay muddo dhan waxbuu aaminsanaa ama hadda laftirkeedu wax aaminsan yahay dadka qaarkood laakiin mar in ay nolosha aad xaqiiqadeeda fahantid oo aad aragtid meesha ay waxa kan ku dambeynayaan ama ay ku dambeeyeen oo na gaarsiiyeen waxaad dareemi kartaa markaad muddo dheer qurbo ku nooshahay runtii waxaad dareemi kartaa markaad aragtid ummadaha kale waxa mideeya waxaad dareemi kartaa marka aad aragtid adiga oo aadan ummadaha aad la nooshahay maanta yacni aadan midab la wadaagin diin la wadaagin dhalasho la wadaagin haddana wax idin mideeyo inay jiraan oo ka muhiimsan waxaasoo dhan waana siduu abwaanku u sheegay qofka meesha wax kaala arkaya qofka xanuunkaaga kula dareemaya waayo muxuu yidhi abkuu doono ha sheegto cidduu raba ha ahaado waxunbaa ehel ii ah dad ninkan af aqaane si wax iila arkaayee na midayso ujeedo qofka aan af aqaano waa qofka aan isku dhaawacanahay waa qofka ila fahmaya ama ila dareemaya dhaawacayga anaga haddaan Soomaalina waxa umaleysay inaanan dhaawaceen isla fahmin badana siiba haddaan hooyooyin nahay waxa umaleysaa inaynan weli fahmin dhaawaceenu wuxuu yahay marka walaalayaal yacni runtii aad bay ii damqadaa maxaa la yiraahdaa wadnuhu markaan arko dad
waddankan aan ku noolahay alxamdulilah yacni aan isku nahay dareen aan nahay oo dareenkaas uu yahay inay iyaguna haystaan caruur anigana aan haysto caruur aan isku meel wax ka arkayno oo ay iga sokeeyaan ama dadkaygii ama iyagana aan uga sokeeyo dadkoodii maadaama aan nahay dad yacni isku ujeedo iyo isku wax si u arka ummaddan oo dhan waxaa midaysa waa ujeedadaas ayagoo iyagu laftirkoodu dee gobollo kala gedisan iyo meelo kala gedisan ka yimid bay haddana waxay fahmeen marka qofka halka qof dhaawaciisa la dareemo xanuunkiisa la dareemo in inta kalena xanuunkooda la dareemayo waayo qofna keligiis meel ma gaaro haddaad xataa meel gaadhid aad orod ku gaadhid ma dhaafaysid meeshaas haddana inaad gadaal usoo noqotid ma aheen laakiin markaad mujtamacaaga wadatid ayaa meel dheer gaadhaa aadna fahantaa awoodda uu mujtamacu leeyahay marka insha allah intaynaan wax badan oo kale ku mashquulin meel hooseynu wax ka bilaabi karnaa oo ah dhaawaca inaguda yaal dhasheennii oo maalinba ama qaar baa la qaatay laleeyahay ama qaar baa dayacan markaan hooyada u naxariisano ilmaha jiran haysata markaan hooyada u naxariisano keligeed ilmaha korinaysa markaan hooyada u naxariisano agoonta haysata waxaan kaloo rabaa inaan maahmaah kale wixii tegay yaysan waxa jooga horkicin wixii tegayse ha u noqdaan talobixiyayaal waxa socda maahmaah kale waxay odhanaysaa nabaradu caddayn uma aha daciifnimo waxayse caddayn u yihiin in cidna ku burburin karin nabarka nagu yaala oo 30 sano aan la burbursannahay oo dhibaato intaa la eg nagu soo gaadhay haddana waa in aynu fahanaa nabaradaasi inay bogsoon karaan aysan daciifnimo ahayn aysan caddayn u ahayn inay daciifnimo yihiin ee caddayn u noqdaan inaan weli taagannahay oo aynaan burburin aan cidnana burburin karin inay u noqdaan midda kale wixiina soo maray wixii tegay yaysan waxa jooga horkicin wixii tegay yaysan maalin walbaba iyagiina horkicin wixii na kala geeyay yaysan horkicin wixii tegayse ha u noqdaan talabixiyayaal waxa soo socda wixii tegay talabixiyayaal ha noo noqdaan waxaan ka tala qaadano war dhibkaas shaluu dhacay maantana yuusan dhicin inaan taa ay tala nooga noqoto waxaa jirta maahmaah oranaysa oo kuleyba af jarmal aniga aan maahmaahdaas ku maqlay ama sitaad bay dhahaan jarmalku ama shbruch maahmaahda runtii waa maahmaah cajiib ah waxay leedahay es ist besser ein einziges kleines Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu flüchten waxaa ka wanaagsan in aad nal yar yacni wax yar oo iftiina daaratid ifsatid inta aad mugdiga habaari lahayd oo kale yacni maahmaahda waxay ka micno tahay intaad dhihi lahayd yacni hadda anaga badanaa maxaynu dhahnaa markaan soomaalinahay waddankii haddaysan dowladdii ma jirto oo dowladdii wax qaban mayso oo yacni intaad ku mashquuli lahayd wax weyn qabashadooda oo ummad kale mar walbaba maxaa la dhahaa haddii taas la qaban lahaa taas la qaban lahaa adigu wax yar bilow wax yar adigu bilow ha ku mashquulin oo yacni ha ku dhex waalanin dhibkan tirada badan wax un adigu bilow nalkaa yarkaa ifi adiga marka walaalahay insha allah waxaan rajaynayaa in aan wax badan fahano noloshu wax yar bay ka bilaabataa oo wax lagu bedelaa caruurtan
special needska ah caruuraa la dhashay waalid baa dhalay dhaawacaasoo kalea soo gaara iyagana hadalku waa dhaawac qofka ood xaqirtid waa dhaawac waxyaalo badan oo waxaa jira aynu isku dhaawacno bulshadeenna yani dhexdeena markiiba laga soo tago haybsooca iyo yacni waxyaalo badan oo waxaa jira aan runtii dhibaatada maantana haysata yacni u ah saldhig u ah oo inaan la dirna aan u baahannahay oo inaan fahanno 30 sano ka bacdi inaan fahanay aan u baahannahay marka insha Allah walaalahay dhammaantiin aad baa idinkaga mahad celinayaa walaalaha nala fahma programmada aan wadno iyo qaabka aan rabno insha Allah in aan meel un wax ka bilowno aad baan u soo dhaweynaynaa inta nala fahansana walaalahayo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inaan meel dheer gaarsiin karno haddii aynaan ku mashquulin waxa majority-gu ku mashquulsan yihiin wax dadka badankooda ku mashquulsan yihiin oo ah wax ummadda sii kala dheereynaya ee aan ahayn wax isu soo dhaweynaya marka waxaan rajaynayaa in dhaawaca qof walbo ina ka mid a dhaawac baa ku yaal dhaawacaas inuu na mideeyo nagu wada yaala insha Allah khayr baan rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته